عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأدي سلام يا ولاشين مع نورا جنال waxaan rabaa hal arin inaan idin sheego channelkaygii magacii ku qornaan jiray ahaa widkuuka nimca nuura channel waa ka bedelay hadda nimca nuura channel baan ka dhigay marka waan soo gaabiyey nimca nuura NUR baan ka dhigay bes marka waa kaas awal horena wuxuu ahaa nimca waa sideeda ma bedelin laakiin nuura baan bedelay so nuura awal hore NUR buu ahaa so hadda waa NURA nimca nuuraan ka dhiga maasha allah tabaaraka allah waxaana rajeynayaa haddii ilaa yiraahdo in channelkayga maaragtay gadaal laga saxo oo aan lagu wareerin hadhowto marka waxaan leeyahay taageerayaasheeda iyo asxaabteeda inay maaragtay ay isii sheegaan dadkii awal ku jiray iga daawan jiray haddii subscribe u saarnayn intii subscribe u saaranna waa ama subscribe u saaran waaba okay oo muxuu ahaa caadiga ugu soo gelayaa si live oo hormaad ah buu ugu soo dhacayaa videoga so inta aan laakiin subscribe aan saaran iyo share waxa weeye iyagana dhibaato haysta hadhowta inay raadiyaan bay noqoni dhibaato ku noqoni wayna ku rafaadiyaan waxaana jeclahay insha allah gabdhahayga walaalaha ama wiilalay gabdhaba oo muxuu ahaa walaalahay Soomaaliyeed inaan maaragtay u gudbiyo Soomaali Maxamed ah ama afka Soomaaliga ku hadasha maasha allah marka waxaan rajeynayaa haddii la yiraahdo raalli ahaada ninbaas qaldan u soo galay meesha inay maaragtay haddii la yiraahdo aan idin sheego hal arin oo muxuu ahaa ku saabsan inaan channelka bedelay maasha allah tabaaraka allah waxaana idin leeyahay channelkii waan bedelay raalli noqda marka channelka laakiin waa sidiisana magaca bisaan bedelay intii garanaysa intii aan garanayninna welcome baan leeyahay cusub ee hadda kusoo biiray haddana walaalayaal waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada waa walaashii nimca nuura channel haddana awal hore channelka wuxuu ahaa widkuuka nimca nuura channel balse waa bedelay hadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin soo marka nimca nuura channel baan ka dhigay waxaana rajeynayaa haddii la yiraahdo inay maaragtay faa'iido badan aan idin soo wado oon idin soo kordhin doono insha allah waxaan rajeynayaa walaalayaal inay gabdhaha ama wiilasha muxuu ahaa dhalinta Soomaaliyeed ay iisi gudbin doonaan siiba wiilasha maasha allah aad baan u jeclahay wiilasha walaalahay ee Soomaaliyeed maasha allah tabaaraka allah wiilal wax qabsi badan karti wanaag ay ka muuqato farxad mar walba wiilasha aad baa ugu faraxsanahay wiilasha Soomaaliyeed ee muxuu ahaa sanadahan dambe soo baxay dumarkeena xataa ayagana maasha allah way fiican yihiin gabdhaheena xoogaa laakiin waxba iskuma qooraan run ahaantii gabdhaha iskuma qooraan waxba iskumana ogola balse wiilasha waxaas waxba kama geli waad aragtay wiilka Soomaaliyeed markuu dhibaataysan yahay wiilka kale la socda ee waxaysta ayaa dhacaawiye garab qabta laakiin inaan waxba qabanaynin ee walaalkii caawinayna aragta kaas nin ma aha waa naag wallaahi runta idin sheegaa nin Soomaali oo waxba qabanayna oo wiilka walaalkii garab istaagaynin aan caawinaynin taageeraynin waxbana u taraynin kaas nin maba ahanba aniga warkaa layga qoro kaas waa naag weeyaan sidii naagihiiba u dhaqmayaa ninka ragga ah waxaa lagu yaqaanaa aftahanimo muxuu ahaa farxad wanaag soo dhaweyn maasha allah xiriirin ma la dhahaa xiriirin muxuu ahaa soo dhaweynha salaan maasha allah xataa koobkaaga shaaha gacanta kugu saaraya marka isa salaamayaan waad aragtay maasha allah warniyaho koobkaaga shaaha ho isaga maaragtay shaahaaga ku qabso waxba aan ma qaranayo waan garanayaa dhaqanka wiilasheena Soomaaliyeed maasha allah laakiin gabdhaha maanta haddaad macnaha ay arkaan adoo kala daadsan ama rafaadsan ama wax la'aan tahay alla ma aragteen tii meeshii maraysa arka alla fiiriya
لا waxay dhahayso ma aragtaa calaacal baa ka saara uf horta tan wayba iga soo booday maba jeceli wallaahi uf waxaa maxaa ii hor dhigay waa haddaad dhimanaysa haddii ay laakiin kuu kala kacdo oo muxuu ahaa maasha allah aad tahay oo noloshaadana caadi tahay dhaqaalo adduun wax walba lacag aad haysatana waxay ku leeyihiin habaaye ii waran saataa maanta waa lagu waayey xaaladda ka waran haye waaba ku daba ordaayaanba ibni aadamaa saas ahba bini aadam xaalkiisaan aqaanaa marka meesha inaan aflagaadeeyo dadka uma soo gelin laakiin inaan dadka yaaqay waxaan doonayaa ay iskula noqdaan wax isku falaan maan doonayaa soomaali 90% waa dad rebaadiye ah oo aan ilbax ahayn ilbax laydin sheegay ma aha inaa isqaawisa ma ahan inaa muusig aad dhegaysato ma ahan maaragta inaad meelaha kalaabyada tagto baadiyada waxyaalaha meelaha iyo xafladaha tagto ma ahan ilbaxnimada lagu sheegay waxa weeye qofka wuxuu ilaahay ka dhigay ayay ku raacayaan qofka ilbaxa ah alxamdulilah buu dhahayaa qofka kalena waxaa weye niyadda u dhisayaa waana qofka ilbaxa ah saasaa la yiraahdaa kaba soo qaad waxaa tahay qof curyaana kuma dhahayo qofka curyaan weeyo kaama leexanayo oo ma iskala kaa weynaanayo qofkaas kale waa qofka caqliga leh ee la yaqaano ee ilaahay caqligiisa u dhammaystira waa qofka ilbaxa waxa ataa uu kugu qaadanayaa ama nin ahow ama naag ahow hadduuna kugu qaadan xataa wuu ku ogolaanaa wixii ilaahay kaa dhigay raalli buu ka noqonayaa kuma caanayo kuma aflagaadeynayo kuma xamanayo kuma ma aragtay kuma yeesayo yeesmadaaba iigu daranba xoogaa waa arkay soomaalidana se u ahaayeen dad xoolo dhaqato ah ka ugu yarbaa wuxuu ahaa neef ari buu lahaa neefka ariga caanaha laga maari jiray waa qofka xoolaha dhaqan jiray dadka markaasaa hadda magaalooyin baa lasoo galay dibadaa lasoo galay maasha allah walaalayaal waxaa idin leeyahay iska bedelo dhaqankan adduunku wuu hormaray caalamku wuu hormaray meel fiican buu marayaa wallaahi inamada soomaaliyeed waxaan la yaabay oo aad iyo aad ula yaabay dhaqan xumada ilbax la-aanta anigana waxaa idin dhihi lahaa ani wax kale meesha uma soo gelinay maasha allah tabaaraka allah ha la yiraahdo dadkeena waxaan u sheegayaa runta ilaahay wuxuu dadka siiye u ogolaada ilaahay qofka waxa uu siiye u ogolaada hadduu ilaahay qofka ka dhigay handikaab ama qof curyaana ogolaada ha ku caayina ha ku muxuu ahaa jeesjeesina ha yasina ha iskala weynaanina qofka maasha allah ag fariiso wuxuu cunaya la cun wuxuu cabaya la cab bal tus inaada ka duwanin addoon ilaahay tahay inaad tahay isagana addoon ilaahay yahay oo simantiin ilaahay u wada simantiin labadiina qofka kale ku soo haray wax haysta ha xastin qofka walaalkaa markuu wax haysta lama yiraahdo alla hiblaayaa heblowa walaalay gaariga noocan intuu ka keenay intay ka keentay guriga noocan intay ka gadatay lacagtani waxyaalahan ay haysata intay ka keentay waxaas lama yiraahdo soo marka inaad xaasidnimada iska dhaafta ayaa fiican oo aada xastin qofka walaalka waa inaad ogolaato tiraahdo maasha allah tabaaraka allah wallaahi bilaahi ilaahay wax khayr qabuusiya anigana ilaahay ha ii sahalo waxaasoo kale ama wax lamid ama wax ka duwan alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale ilaahay ha u sahalo hana u siyaadiyo inaad tiraahdo ayaa ila qumanaani oo aad saa samaysaan laakiin haddii ma aragtay aad intaad indhaha ka fiiriso aad dhahdo uf horta tan maba iga soo booda mar alla markii la arkaba dhar qurux badan guri qurux badan gaari qurux badan wax qurux badan bay haysataa wax walba alla kan waba iga soo booda maalin kasta gaari cusub kan hebelow waaba nacayba haddana wuuba sii dallacay gaari wuxuu haystaa dukaan noloshan war waxaan intuu ka keenay waayo waxaad la dagaalamaysaa ilaahay qofka isagaa lama dagaalamaysid run ahaantii ilaahay baad la dagaalamaysaa ilaahay ayaad la dagaalamaysaa sababta ah ilaahay isagaa siiyo qofka hantida iyo xoolahan waxan uu ku farxayo uu ku faanayo uu ma aragta ku xaragoonayo soo waa inaad tiraahdo ilaahayow hebel waxbaad siisay anigana addoonkaagii baanahay kamana duwaniyo ilaahayow anigana ii sahal inaad tiraahdaa kuu quman aada yasin isla weynaanin aada kibrin haddii kale
waad ku sii dulloobaysaa wallaahi lacadiim waad ku dulloobi ogolo qofka walaalkaa ee haysta hantida ee maalka ee kartida ee caqliga ee farsamada ee adayga ilaahay siiye ogolow ha ka hor istaagan ha isku dayin inaad maaragta ka hor istaagto dad baa waxaa jira xataa dad ganacsi haysta ah oo waxaan arkay la dhibaateeye war qofka ganacsigiisii noloshiisa mustaqbalkiisa ka hor istaagina oo xaasidnimada iska dhaafa ilaahay ka baqa ummad yahay muslim baan nahan dhahaynaa 24 hour muslim baan nahay waxaana dadka ugu dharka waaweyn adduunka dhar cambuurada waaweyn xijaabada waaweyn baan jiidaynaa nimankeenana sarwaalada gaagaaban bay xidhaan qamiis bay xirtaan muxuu ahaa gar waaweyn bay leeyihiin timihiina koofiyad baa la qabaa koofiyad subxaanallah haddana markaad calooshooda iyo qulubtooda fiiriso waaba dad xaasidiin ah eber ka yihiin niyadda eber ka yihiin asxaabay waxaa idin leeyahay please soomaali haddaan nahay aan iska dhaafno xaasidnimada adduunkana waa naga weyn yahay dhulkana waa naga weyn yahay irsaaqada ilaahayna waa naga badan tahay ilaahay hal markuu u siiyo inta uu siiyo inta kasoo hartaa ka badan ilaahay ayaa kasii badan intuu dadka addoommadiisa u qaybiya inta uu hayaa ayaa kasii badan marka ilaahay makuu weynin hataa qof yahow waxba aada haysanin ha isku dayin qofkan kale walaalkaa inaad xaasidnimo kula dhaqanto aad xasdid ee aad ilaysid aad maaragtay muxuu ahaa ka hor istaagtay dad baa waxaa jira xataa sixir wax la yiraahdo ilaahay baan ka magan galaynaa acuudu billaah xasbuna allah wa nicmal wakiil uga hor istaagaya oo dhahaya hebelow wuxuu haysto waa inaan ka hor istaagaa qofka waxaad yeelaysa malaha waayo waxaad la dagaalamaysaa allah run ahaantii allah baad la dagaalamaysaa allah haddaad la dagaalanto hadee jahannama ayaa diyaar kuu ah waxaad ilaahay ka dhibaysaa iska yar laakiin adin bay kabaha kaa dhammaanayaan orod un weligaa orod saad qofka u xastayso wallaahi billaahi adin baa kabaha iska dhammayne oo dharka iska dhammayne oo caafimaadka iska dhammayne waana la ogaado qofka xaasidka ah isaga unbay kusoo laabtaa dhibka ama ilmihiisa unbay kusoo noqdaa hadduuna asaga xataa ku noqonin ku dhicin waxa weye ilmihiisa ku dhacdaa waa la ogaada taas iyada walaalayaal waxaa idin leeyahay waa idin baryayaa gabar walaashin baanahay maasha allah tabaarakallah xaasidnimada halayska dhaafo halayska dhaafo xisqiga halayska dhaafo isku dirdirka weliba isku dirdirka waa ku dheeraynaa soomaali haddaan nahay halayska dhaafo xumaanta halayska dhaafo maaragtay mashquulka lagu mashquulayo faamilada iyo dadka isjecel dadka muxuu ahaa wanaagsan dadka guryooda quruxda ay quruxsan yihiin dadka maaragtay ganacsigooda uu maasha allah u kala socdo yaan lagu mashquulin war ilaahay looga baqo wallaahi ilaahay looga baqa idin leeyahay ilaahay oga baqa dumarka siiba dumarka wallaahi 80% way ku dheereeyaan iyagii baana dulaysan haddana dulinimatii ugu xumeed bay ku nool yihiin way bahdilan yihiin hastay isku bahdilayeen ee isku duleyneen isku xastayeen iyagii unbay ku soo noqotay balaayadii marka waxaa idin leeyahay xor ka noqda xor waxyaalahaas ha fiirinina ha sii raacraacina arrimaha dadkana ha sii dabagelgelina oo muxuu ahaa arrimahoodana ha raacraacina wararka aad raadinaysaane ma aragti bilaa lacagtana iska daaya waxaa idin dhahanta idinkoo lacag samaysta oo lacag wax walba waxaad doontaan ka samaysta wanaag baa lagu bedelaa wanaag ku bedela xumaantaas intaasaan uga baxayaa waxaana leeyahay walaashiin nimcanuura weeyaan qof walba soomaaliyeed waxaan rajoonayaa inuu iisoo dhowaanayo insha allah yaan la iga cararin runta yaa la igu nicin anigu qof run sheegaanahay runta aad baanu jeclaa beenta waa necbahay qofkii runta jecelow soo dhawow qofkii beenta jecelow oo runta necebow iga fogow waxbana igu sameyn waxbana igu darsanen marka ilaahay baan waxaan ka baryayaa inay afkiina iyo adinkiina aan ka nabad galo anigana afkayga iyo adinkayga laga nabad galo maan ilaahay ka baryayaa وبالله توفيق وحانا إذن ليها إكعمة فرنكسو دوادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
hala sii sheer kareeya walaalayaalow, sii sheer kareeya, subscribe iyo like-na iisii saara. waa inoo mar kale insha allah waana soo geli doonaa haddii alla idmo. ana ma aragtay aan dhibaato idin haynin, idin aflagaadeynaynin, maan soo geli doonaa insha allahu tacaalaa. dee waxaa idin leeyahay welcome meel walba aad joogtaan. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.